ورحمة الله وبركاته. سودو صاحب ميل بدون الدافع هذه تعالى ذبح أديك داونسين لكن سبسكرايب تهيجي اللون هنا إلى العافية يقول ساعة وأنت يركوسي كده لا حركين تيار لايك تاني قصي صار واحد دونينا كهالله حلي واحد كله واحد لاقبتي سودو أنت أدونك دمشيدين ريان بتشأش واحد كله سيد أدونك لاقك عهر جيسة oo waxaan kule jacaylkeedii amba soojkeedii amba odayga qamar sugaani ha waxaan kule isnoodiisa qamar sugaani oo fadhiga uga kacay baan ku yiri iyadoo sidee u shidano maasha Allah tabarakallah farxad ka muuqato markaad haysato qofka jeceshayo isna ku garab taagan oo ku qoslayo ku sheekeynaya oo adduunyada wax ka maqan aanay jirin waa sida Rayaan Bajaajo kale waad iska qoslaysaa Rayaan waxa kule kabteeda lama gashan karo Rayaan kabteeda lama gashan karo Rayaan gabadha kaliya dhaqashada ogol gabadha kaliya waxaan ku leeyahay laga yaabay aynu ku socono soo dhaweyntiisa loo gartay xalad أتشوف هاي قد عين معن دقاق صح والله ورنتي gabadhan waa kundaan weeye dheema sug nacala shiitanku yaal wuxuu ku soo gabagabeeyay haddaan dib ma garanaysaa qoortaadan dheema suro abaalkaagii ma gudin waa run wallaahi anaaba laba gabadhaas waa inaad qoorteeda dheeman iyo dahab aad ka laalaadisaa waayo way u qalantaa yaa daan qoortaada dheema surin abaalkaagii ma gudin war heesta iyo lamaan amba Rayaan Bajaajo isleegi soo maaha way isku eegihiin yaa heesta iyo Rayaan Bajaajo isku eegihiin waxa la awaal nin gala waa la helay laakiin nin guda lama helo qabar sugaani waxa la leeyahay qabarow ibika wadiga wada sax oo istriinad haysataaye eede hadhow yeen lagu taagino hore oo taagnaa markan heesta qaaday Rayaan Bajaajo waxa ku leeyahay naag dhaqasho ogol weeye wallahi gabadhan kabteeda lama gashan karo isnid is weeye gabadh dhaqasho ogol weeye gabadh lagu ciyaari karo marnaba maaha qaabka loo labisan yahay markaad magarata jawi jacayl iskaga jirto waa iska nooc ee adduunyada wax ka maqan haba yaraatay aanay jirin oo adoo yarashan laati jira magaalada aad lagdatayba yaa marka Rayaan Bajaajo waa gabadh magaalada soo lagdatay waxaan ku leeyahay maanta waxa ka maqnaa uu jacaylkeedu deesaa iraahda abaalkaagii ma gudin hadaan qoortaada dheema surin abaalkaagii ma gudin hadaan qoortaada dheema surin ay maraysaa waxaan arkay dad badan oo waxaan ku leeyahay iska nacabo oo hadal hayo inaan tano waxaan ku leeyahay Rayaanay in qamar maaha in qamar uu taagan yahay Rayaanay qabar dhaqasho malaha wax saasa ma sha Allah horta weydii arkay familka farxad ka maqan haba yaraatee ma jirto farxad ka maqan haba yaraatee ma jirto barnaamij qurux badan xalaytoola waa loo qabtay amba soo dhaweyn qurux badan soo dhaweynayaal badanna waa loo qaban doonaa insha Allah way gabadh wuu qalantaaba waxaan leeyahay gabadha heesta hadaanan qoortaada dheema surin walba sana oran abaalkaagii ma gudin yaa heestaas siday tahay iyo siday tahay Rayaan Bajaajo waa isku eegin oo isku soo baxeenba marka barnaamijyo kale kuwan ka qurux badan oo sugeynaa Rayaan si u libisan tahay uurka yara waa lagu xaragoonaya qamar sugaan marna uu eegay talo ma uurkii waxasuusin qaar baa xasuusin weey is update garay weey adeer qaali carruurtaadu waa lagu sidaayay jaamka yareed ee qabarow yaa marka ma sha Allah ilaahay ilmaha yarna nabad adduunka ugu keen ilaahay caafimaad qab adduunka ugu keen ilaahay gabadhaas waxa ku leeyahay arkaysa xaaladeeda iyo jawigeeda farxadeeda farxad waarta oo dhameystiranta nolosheeda siisi ilaahay inaan walba Soomaaliyada oo dhibaataysan dhibka ka saar waa subax xaroon ducaynayay kuna aaminta dhaha gabadh walba Soomaaliyeed Soomaali ah oo dhiban gabadh walba islaameedba cid doonta haatee ilaahay oo dhibka ka saar ilaahay farxadooda soo ugu dhameystir ruuxanti xaalad gabadhu marka ay uurka leedahay stress ku helo ruuxanti waa xaalad yar xanuun ah kulli Rayaan
waa gabadha ka gudbi karta marxaladahayga waayo waxa jiray imka hablo badan oo xaaladda ku jiro laakiin marxaladahooga aan ka gudbi karin stress haysto niman xun haysta waxyaabo badan qaba ya marka aan waxa leeyahay hablaha Soomaaliyeed adkeysi sameeysta ilaahayna farish khayr qabaha idii furo inta urar kale ee dhibaatooyinka meelaha kula jirtana waxaan leeyahay ilaahay farish khayr qabaha idii furo dhamaanteena ilaahay dibka inaga wada saaro farxad alla dibka inoogu wada bedelo noloshu waa farxad inta yaraad nooshahay hadaad faraxsanaan weydo wax walba ka xumaanayaan wax walba way ka xumaanayaan marka dadka aan xaaladahan oo kale ka gudbi kareenin ayaan u sheegayaa haddaba rayaan samir bay maanta halka ku soo gaadhay khilaaf badan baa soo galay ummadii dhan baa ku kacday waxaan ku leeyahay win arkaynay qof walbaana maanta uu ka dhadhansan yahay oo qofna maanta inta halkan soo fariisto ugama sheekeynayo rayaan bajaaj wixii soo maray laakiin ma sha Allah waxa heshay nin wixii oo dhan ka mayra oo wanaajiya oo waxaan ku leeyahay abaalkeedii aan gudi kareenin marka yeenan ku si mashquulin oo inaan waxaan ku leeyahay kala geyn labada qof ee isjecel ee lamaanaha ee isqaba mar walba waxa muhiim ah inaynu ku mashquulno isku soo dhaweynta bulshada inaan mar walba ku mashquulno ayaa muhiim ah waxa jirta dadka aad moodaysidba inay ka qootaan xanta iyo kala geynta ummadda dad aad moodaysid inay biil ku qaataan ayaa jira marka waxa leenahay qamarow xilka aad qaaday Allah kugu asturo xil yar ma aha reer Somaliland waxa leeyahay reer Hargeysa gabadhaas rayaan ah fadhiga looga kaco barnaamijyada waxaan ku leeyahay casuumadaha lagu badiyo maadaama ay tahay markii koowaad inoo timi insha Allah bidmillaah kariyada faraxsan oo jawi kala haba naga noqon bidu meeshiis kala kay joog baday halka tagiba meel lagu kala tago lama taagnay haba naga tagi bidu meeshii ya haba naga taginba si walba haato aad iyo aad baa maasantiin muuqaalkan oo kale inta ku kulmi doonana waxa rajaynayaa inaan caafimaad qab ilaahay si weydiisano insha Allah inaga caafimaad qabna Allah nabada isku keen soo celiyo muhiimadu waa farxadana Allah hayno barakeeyo amba Allah hayno dheereeyo idinkuna ilmaad helaysa canaanto channelka fadhiga uga kacday maana idin lahayn saaxiibayaal marka muuqaalkan oo kale inta ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo mac salaam